bismillaahi raxmaani raxiim maalin wanaagsan daawadayaal waxaan rabaa inaan kula wadaago wararka ugu dambeeya ee hadda soo kordhay. waa war ay ku dhawaaqeen hogaanka xamaas. waa war aad u culus. allah u naxariistee waxaa geeriyooday ismaaciil haniye. allah u naxariisto hogaamiyihii weynaa ee siyaasadda ku matelay ururka xamaas. waxaa lagu dilay subaxnimada saakay wadanka iiraan. sida uu ognahay waxaa waaye dunida kuma shakiso, laakiin waxaa hadlay ilaalada kacaanka ee iiraan iyo xamaasba. labadooda waxay ka sinaayeen tacsiid, waxay kaloo ka sinaayeen fariin. waa cajiib sooma. okay, markaa ka imaano iiraan iyo xamaas, yaa dilay hogaamiyaha ee siyaasadda, madaxa siyaasadda ku matalayay ururka xamaas. sida la sheegayo ama aan soo xigtay waxaa dileen sahanuuniyadda. maxay tahay sababtay ku dileen xamaas oo siyaasadda u qaabilsan? okay, waxaad moodaa dhacdooyinka dunida ka dhacaya inay yihiin wax la qorsheeyey. kuleyba runta dunida ma jecla qarnigan. aniguna waxaa weeyaan waxaan run ahayn ma aqaan. waxaa weeyaan intaad been sheegi lahayd waxaa kaaga fiican bal asla daawano. waxaa geeriyooday ismaaciil haniya, madaxii xafiiska siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa xamaas. ismaaciil haniya sidaan barnaamijyadeennii hore idinkula wadaagay, isaga iyo hogaanka islaamig jihaad waxay ku sugnaayeen magaalada tehraan oo caasimadda dalka iiraana. waxaa halkaas ay kula kulmeen aayatullaahi khomeini. waxaa kaloo ay la kulmeen madaxweynaha cusub ee dowladda iiraan. okay, iiraan waxaa waaye wadamada islaamka waxyaabo badan bay ugu duwan tahay. waxyaabaha cajiibka ah ayaa waxay tahay haddii aad islaam u hadasho ama islaam aad u shaqayso, dunida ma ku waareysa. rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay aakhir zamaanka inuusan dhici doonin ummadiyo aanan isbaabi'inin, islaynin. dee soomaaliya kama hadlayno, muuqaalkan kama hadlayno ruushka, kama hadlayno maraykanka. waxaynu halkan aynu uga hadlaynaa waxay tahay hogaamiyaha ururka xamaas ee madaxa siyaasadda ismaaciil haniya oo saaki lagu dilo weerar qorsheysan dilay israa'iil ama sahanuuniya saa u taqaanid. wuxuu joogay iiraan waxaana la dhintay asiga iyo ilaaladiisa. su-aasha meesha ka taalaa waxay tahay iiraan dee ayadana barteeda wadankeeda waxaa lagu dila ninka nuclearka sameynayay oo iiraan u dhashay. malase dhigi karaa iiraan mid bay u shirqooleysaa hogaamiyaasha islaamka. kuley allahu aclam ma ku dubaabi kari, balse waxaan idin leeyahay soomaaliye haleys cafiyo. wax cudurka ana ka nahay waa qabyaalad. halka dunidana waxaa weeyaan ay u dhimanayaan islaamnimo iyo muslimnimo. waxaan halkan fariin ugu diraa dhammaan qof walbo soomaaliya oo muslim sheeganaya, cafi walaalkaa, isku naxariista soo ilaahay noogu naxariisto. ama ahayn wata mid baan u dhimanaynaa. dulqarnayn waad aragteen wuu dhintay. haddana barbar baa kabaanka saaran. waxyaabaha cajiibka ayaa waxay tahay arrinta barbar markaan u imaano, barbar ka hor waxaa jiray qamar suugaani. qamarna waxaa weeyaan inuu meel soo fariisto ashaar. waxaad u maleysaa soomaalida in ay sameynayaan xayeysiin. qolada horta shaydaanka aantan maana soo hadlin, sababtan usoo hadlinaa waxay tahay haddaan ka fikiro fiyuus aan soo dhow anoo ka hadlay arrimo diine dambi waxaan ahayn kama helayo. waxaan jeclaystay in aan arrintaas ka gaabsado, waayo
waxaan ay qof islaama muslima baan leh shilimaanna waxaa weeye diinteeda ma siisanayo soo aniga waxaa weeyaan nin diina kuley sheekhaan aan ku dhihi karin laakiinse nin kitaabkiisa haysto aanan shilimaad fiis waxba aanan ku dooran laakiin Soomaaliya hala baraarugo ama ole Soomaali badan dalweyn ayaa ku imaan karaya waxaa jira saraakiil dawladda Iiraan ka tirsan oo hadda kulan degdeg ah isugu yimid si ay arrintan isaga wareystaan jawaab cadna ay kaga bixiyaan siday ku dhacday in Ismaaciil Haniya lagu qaarijiyo magaaladoodii uu ku sugnaa isagana marti uu ahaa madaxweyne Cabbaas